kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha badan ee hawada ku saaxiibno ku soo dhawaada war waxaan dal iyo dibad idin kaga hayno oo daqiiqadaha soo socdo hadduu allaha awood leh inoo saamaxo aad halkan ku daawan doontaan balse intaanan qodobadeena guda gelin fadlan haddii aad nagu cusub tahay waa codsi nagu soo biir oo channelka subscribe inoo saar si aad noola jaanqaado isla markaana aad u hesho muuqaalo xaqiiqada ku salaysan oo ku farxad geliya maalinlana ah oo markaasi aad halkan kala socoto haddii aad horaan ula joogtana waad ku mahadsan tahay sharaf korkaaga ha ahaatee muuqaalka like inoo saar sheertan ay nagu caawi si aan u helno saaxiib wanaagsan oo adigoo kale ah mahadsani qodobada wararkeena ugu door karoon ayaa waxa uu ka mid noqon doono hubka dhigista jabhadda ka howlgasha gobolka Amxaarada ee loo yaqaano Fano kuwaasi oo gebi ahaanba la bilaabay maalinta maanta in hubka laga dhigo arrimahaasi oo faahfaahsan iyo waliba wixii cidi ka dambaysa hubka dhigistaasi iyo ujeedada laga leeyahay ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa dhanka kale doorashada Soomaaliya ayaan ka marnayn oo iyaduna aan halkan idin kula wadaagi doono xaaladeeda iyo halka ay wax marayaan dalka Ukraine oo dagaalo xun ay ka socday bari inoo dambeeyay iyadana wixii ka soo cusboonaaday ayaan halkan idin kula wadaaginaa sidoo kale waxaan idin kula wadaaginaa oo qodobadeena ka qayb noqon doona islaamka markaasi ku dhaqan gudaha Itoobiya gaar ahaan gobolada sida gobolka Gondar oo kale ku dhaqan oo soo saaray waraaqad isla markaasina ay ku cadeynayaan in halkaasi muslimiin badan lagu xasuuqay iyaga oo BBC-da la wadaagay waxyaabihii halkaasi ka dhacay waxaana la filayaa in si degdeg ah ay baaqi ay direen wax looga qabto taasi oo ah in muslimiinta isla markaasi halkaasi lagu baabi'iyay xaqooda loo raadiyo aanu ku horeyn jabhadda Fano ee ka howlgasha gudaha gobolka Axmaarada ayaa waxa la bilaabay hubka dhigista dhabta ah ee markaasi in badan ay dawladda Itoobiya ku dhawaaqday in gabi ahaanba jabhadaha laga dhigo hubka kuwaasi oo si dhaba ugu sharciyeysneen ama aan kamid ahayn ciidamada ay sida tooska ah dawladda u aqoonsan tahay ee markaasi dawladda u shaqeeya gobolka Axmaarada oo arrinka isaga ah in badan la marin la'aa ayaa maanta waxa ka bilaabatay in hubka dhigis toos ah lagu sameeyo ciidamada Fano Axmaarada ayaa waxay ku andacoonayeen ma jirto gobol ku yaala gudaha Itoobiya oo markaasi jabhad lahayn mana jirto qoomiyad aan jabhad lahayn isla markaa sharci darro ah oo gudaha ku sugan aan lahayn ee sababta looga qaadayo Fano ama markaasi Axmaarada kali loo taageedsanayo ayay markaasi ku andacoonayeen ama ay ku doodayeen waxayna gabi ahaanba arrinka isaga u muddacayn si lama filaana iyaga oo markaasi sheegay in ay dagaal ka xigaan arrinka isaga hase yeeshee hawshii oo ay socon weyday oo maanta waxa la bilaabay ciidamada booliska ah ee ku dhaqan gabi ahaanba dawladda u sharciyeysan ee ka howlgala gobolka Axmaarada in si toos ah ay markaasi goobaha ugu weerarayeen ciidamada Fano ee ah jabhadda ka howlgasha gobolka Axmaarada ciidamada Fano ayaa iyaga laftirkoodu waxay sameynayeen dagaalo markaasi ay kaga soo horjeedaan in hubka laga dhigo hase yeeshee waa awood ayaa loo sheegtay waxaana la bilaabay hubka dhigis rasmi ah taasina dawladda ayaa ka dambayso dawladda Itoobiya ayaa bogaadisay ciidamada booliska ah ee ku dhaqan gobolka Axmaarada shaqada fiican ay bilaabeen inkastoo oo wali ay Axmaaro ku andacoonayso in hubka dhigis lagu sameeyo gabi ahaanba wixii jabhad ah oo ka howlgala gobolada Itoobiya gudaheeda ku yaala sidoo kale waxa jabhado aad u fara badan ay ka howlgalaan gobolka Oromiya Tigreya iyo sidoo kale waliba Soomaalida Canfarta iyo gobol kasta oo ka tirsan markaasi dalka Itoobiya waxayna sheegeen ilaa in dadkaasi oo dhan ama jabhadahaasi oo dhan hubka laga dhigo si xal waara looga gaaro colaadda dabada dheeraatay ee ka jirta dalka Itoobiya hase yeeshee codsigoodii waa uu buray maadaama maanta lagu guuleystay in ugu yaraan 20 askari oo kamid ah askartaasi sharci darrada ah ee hubka wadata ee jabhadda hubka laga dhigay danka kale muslimiinta ku dhaqan dalka Itoobiya gaar ahaan goboladii ay carqaladaha waaweyn ka dhaceen bishani gudaheeda ama isbuucii la soo dhaafay halkaasi oo la sheegay in khasaare naf iyo maal bale uu ka dhashay oo markaasi ilaa iyo 30 qof oo muslimiin ah halkaasi ilaa 40 inta u dhaxaysa lagu dilay halka boqolaal kalena ay ku barakaceen dhibaatana lagu gaarsiiyay ayaa dadka ku dhaqan Gondar ee muslimiinta ah waraaqada ay la wadaageen BBC-da waxay u sheegeen in gabi ahaanba halkaasi dadka muslimiinta ah loogu geystay carqalad aad u badan iyo dhibaatooyin badan waxaana u dheer ayaa la yiri jirdilka iyo kufsiga gabdhaha muslimiinta halkaasi loogu geysanayay dilka iyo dacatiyada kale gabi ahaanba waxay waraaqada iyada ku xuseen wax alla wixii dhibaato ah oo halkaasi loogu geystay dadka muslimiinta ah iyaga oo la wadaagay waraaqadaasi BBC-da ayaa waxay sheegeen in si degdeg ah dadka isaga ah ee markaasi halkaasi lagu dhibaateeyay ee muslimiinta haddii cadaalad ay jirto si degdeg ah loo gaaro isla markaana baaritaan madax bannaan loogu sameeyo dadkaasi si xuquuqdooda loo raadiyo
dadka halkaasi lagu waxyeeleeyay ayaa waxaa la sheegay in awood lagu maquuniyay maadaama aysan jirin dowlad maanta muslim ah oo markaasi madax bannaan oo halkaasi ka shaqeysa oo dadkii gaal iyo islaamba la isdhex degan yahay hase yeeshee awoodda ugu badan ee afrikaanka dhanka yuhuudda markii la yidhaahdo waxay ku sugan tahay Ethiopia waxaana la sheegaa dalka ugu yuhuudda badan inuu yahay oo markaasina ay ku yaalaan kaniisadaha taariikhiga ah ee dhowr kun oo sano jiro oo markaasina taariikhiga ah ee caalamka markii la yidhaahdo yuhuudda dhankooda markii la yidhaahdo ay u soo haajiraan ama ay soo aadaan waa hagaag dhanka Soomaaliya hadaanu aadno doorashada dalka Soomaaliya ayaa waxay maraysaa meelo xasaasi ah maanta ayaana la soo afjaray diiwaangelinta aan idhaahno musharaxiinta madaxweynaha dalka Soomaaliya sanada 2022 markaasi musharax u ah ama xilka qaban lahaa dalka Soomaaliya musharaxiintani ayaa waxa la xusay ama la sheegay liiska musharaxiinta doorashada madaxweynaha dalka Soomaaliya sanada 2022 inay tahay musharaxiintii abid ugu tiro badnaa oo abid iska sharaxa dalka Soomaaliya tan ayaan la ogeyn sababta ka dambaysa musharaxiintani 39 ah ayaa magacyadooda halkan idin kula wadaagayna waxaana kamid ah Shariif Sheekh Axmed Daahir Maxamuud Geelle Bashiir Xaaji Cali Cabdiqaadir Cusuble Cali Cabdullaahi Cali Xasan Cali Khayre Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Cabdikariim Xuseen Guuleed Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdiraxmaan Macalin Axmed Siciid Ciise Maxamuud Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Axmed Ducaale Geelle oo xaaf loo yaqaano Mahad Axmed Diiriye Mukhtaar Maxamed Siyaad Fawsiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo ah gabadha kali ee dumarka ah ee markaasina xilka u taagan sanadan Nucmaan Sheekh Cumar Ridwaan Xirsi Maxamed حسن شيخ محمود داهر أويس عمر عبد القادر أحمد جمال أحمد إبراهيم عبد القادر حسين محمد عبد آذن هوسو عبد القادر شيخ علي عبد محمد كوسو عبد الله علي أحمد حسين عبد نونو جبريل إبراهيم عبد الله محمد عبد الله فرماجو أبوكر آذن عبد الله عبد الناصر عبد الله محمد عبد الناصر عبد الله محمد أنا رهنه محمد آمين فارح سعيد عبد الله الدني زكريا حاج محمود عثمان حسن عبد الله عبد علي حسن طابت عبد محمد إيوه محمد عبد الرحمن علي dhammaantood 39 musharax ee halkan aan ku xusnay waxay kamid yihiin musharaxiinta isla markaasi u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha ee dalka Soomaaliya insha Allah waxaan leenahay 39 kaasi ka khayrka qaba ee Ilaahay barwaaqo iyo guul u horseedi lahaa dalka Soomaaliya rabbi ha ka soo saaro adiguna fikradaada iyo waliba wixii markaasi ra'yi ahaan iyo qofkaad u codan lahayd qaybta commentiga waad nagula wadaagi kartaa adiga oo mahadsan musharaxiintaasi aadka u tiro badan ayaa maanta waxaa la soo gabagabeeyay bixinta shahaadada musharaxnimo ee madaxweynaha ayaa la soo gabagabeeyay halkaasi ayayna ku afjarantay oo ay ku afjarmay page-kii liiska diiwaangelinta markaasi ay qaadashada shahaadada tartanka ama musharaxnimo ee dalka meesha codaynta ay ka dhici doonto halkaasi in ay berita isugu yimaadaan isla markaana uu sheego axad kasta iyo mowqifka iyo tiimka markaasi uu leeyahay iyo meesha uu u joodo ee dalka uu doonayo in uu ka cabiro ama waxyaabaha uu doonayo inuu dayactiro khudbadaasi iyo hadalladaasina waa sugaynaa hadduu Allaha awood leh ibn berito wixii ka soo cusboonaadana halkan ayaan kula wadaagi doonaa daawadayaal intaasi waxa inooga dhan war waxaan idinkaga haynay dalka iyo dibadiisa tan iyo kulankeena xiga waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabad diino